السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeena waxaan ku baran doonaa haddii ilaahay yiraahdo sida Google sida blogger website-kaaga loogu daro Google Analytics. Google Analytics-ku waxa weeyaan wuxuu kuu soo koobayaa wixii xog ah ee ka socota website-kaaga gudihiisa iyo wixii inta dad ay ku soo booqanaysa meesha laga soo booqanayo cidda kula joogta xataa cidda waqtigaas xaadirka ah ee website-kaaga ku jirto xitaa iyaduna live-ka ah ee hadda website-kaaga ku jirta iyo meesha ka soo booqatay iyo tiradooda intay yihiin iyo xogo badan oo kale mar ayaynu si fiican u sharxi doonaa waa maxay Google Analytics iyo waa maxay Google Search Console laakiin hadda sida loogu xidho ayaynu barananaa marka muuqaal kale oo dheer ayaan ka sameyn doonaa suna muuqaal ku dheeraanin insha Allah waxaan sameyn doonaa sida loogu xidho Google Analytics blogger website-kaaga marka koobaad ayaan soo furo tab cusub ama Google Chrome meesha doonto soo kiciso aan hadda Google Chrome baan isticmaalayaa okay halkaas sare searching-ka ayaad ku soo qoraysaa Google Analytics ayaad ku soo qoraysaa marka aad soo qortid waa kan u sareeya ee ku soo baxa markaas isaga ayaad ku soo dulfanaysaa uu ku soo kacaya markaas haddii aad isticmaalso computer isagoo ballaaran buu ku soo kacaya hadda mobile isticmaalasana asa computer ayaan u bedelanaa markaas marka hore sisan ayuu kugu soo kacaya hadduu san kugu soo kaco waa waxaan ka dhiganaa hadda waxaan dooranayaa account kamid ah akoonadayda kolka account-ka kugu sameeyay yahay blogger-ka waa dooran kartaa account-ka la dooran kartaa no problem hadda account-kaygan dooranaya marka halkan timaado waxaan ka dhiganaa hadda desktop ayaan ka yar dhiganaa mobile-keena falaadha krujeeda ayaad ku dhufanaysaa kadibna desktop ayaad kusoo dhufanaysaa si aad desktop uga dhigato mobile-kaaga marka san kuu soo baxo desktop ayuu soo kacayaa saan soo sheegnay Google Analytics waxa weeye wuxuu soo koobayaa waxa xog ah ee ku jirta website-kaaga waxa ka socda iyo xogaha cidda soo booqanaysa user-kaaga inta ay yihiin inta wadana laga soo booqdo saacadii u dambeysay cidda ku soo booqanaysay live hadda cidda ku jirta website-kaaga ayuu soo koobaya xogaha dhan ayuu si muhiim ah ku siin doonaa muuqaal kale ayaan ka warrami doonaa isagoo oo dheer oo aynu sharxi doonaa insha Allah hadda waxaan ku xiri doonaa sida blogger waxaan baran doonaa sida loogu xidho blogger website-kaaga ku dhufo start meeshaan ku dhufo marka koobaad daaqadan ayaa ku soo baxaysa marka daaqada ku soo baxdo meeshaasi sare ay ku qoran tahay my new account name waxaad ku qortaa website-kaaga magaciisa ku qor aan hadda kan hoyga ayaan ku qorayaa meeshana tick saar saddexdaas tick markuu saaran yihiin waxaad ku soo dhufataa next xaggan ayuu ku keeni doonaa kadib waxaad doorataa haddana mar labaad ku soo celi website-kaaga magaciisa uu xagga sare ku soo celi meesha oo sare ku keeni doono website-kaaga magaciisa uu ku soo celi kadib waxaad dooran doontaa xagga kuma jirto Soomaaliya kuma jirto marka halkan ku soo baxdo iyada saas iska diisan doontaa haddii United States ku tahay iyo haddii wax kale ku tahay dhibaato badan ma keenayso ana hadda United States ma ka dhigay lacagta xaggan currency-ga waxaan ka dhigi doonaa US dollar baan ka dhigayaa waxaan ka dhigay US dollar baan ka dhigay marka halkan aan ka soo dhigto United States xaggan ay US ka soo dhigato nasib dar kuma jiro Soomaaliya kuma jirto wax dhibaato ma keenayso kadib waxaad ku soo dhufan doontaa next shadan ayaa ku soo bixi doonta marka xigta meeshan ay ku qoran tahay name one ay ku qoran tahay waxaad ka dooran doontaa category-ga website-kaagu yani wuxuu ku saabsan yahay haddii meeshan ku jirto haddaynu ku jirina inta badan address ayaa iska taabtaa ana hadda other baan iska taabanayaa wuxuu ku weydiin doonaa business size-ka iyo waxaas ku weydiin doonaa oo macnaha cidda ku shaqaysay waxaa si kale ayuu u shaqeeyaa marka nidaamka la eego meeshan iyadana waxaad dooran doontaa ka ugu yar oo ah small 1 ilaa iyo 10 employees kadib meeshan dhammaanteed tick ayaa la saaraysaa marka laga reebo other-ta meesha dhammaanteed wada tick ayaan saaray adna wada tick ayaa saari doontaa insha Allah create data ku soo dhufo marka shaashadan ku soo saaro waxaad sameynaysaa meeshan waxaad ku dhufan doontaa ay agree baad ku dhufan doontaa meesha kale ka hooseysa iyana waxaad ku dhufan doontaa halka hoose
iyana tick baad saari doontaa labada meelood marka saarto waxaad oran doontaa I accept meeshan waxa ku soo baxaysa waxyaalaha notification-kii waxa soo gaari doona dib malaha iska wada saar tigta halkan tick wada saarayana kadib waxaad ku dhufataa save ku sii dhufo say daaqadan kaaga xidhan okay kadib waxaad ku soo dhufataa meesha ay ku qoran tahay web markaad web ku soo dhufato meeshan ayuu ku keeni doonaa meesha u sareysa waxaad soo gelin doontaa website linkigaaga ama website-kaaga URL-kiisa ayaad soo gelin doontaa halkaasi hadda website-keena haddaan tagno oon soo koobiyeysanno URL-keena kadib meeshaas ayaan soo gelinaynaa linkiga website-keena marka halkaad soo geliso website-kaaga linkigiisa waxaad sameynaysaa waxaad ka saaraysaa intaa ka dambeysa www xaga ka xiga https-ta ayaad ka saaraysaa meeshan waxaad ka dooranaysaa iyada https already iyada waxay ku ahayd https www inta ka dambeysa iska masax dhamaanteed inta waan wada masaxaya waxa ka xiga okay aan saas correct ku yahay halkan waxaan gashanayaa magaca website-ka malkan gelinayaa okay marka halka website-ka magaciisa soo geliso halkaana aad soo geliso website-ka URL-kiisa kadib marka inta dhamayso waxaad ku dhufataa create stream ku dhufo san ayuu ku soo qabanayaa markaasi hoyga crypto magaca ku sheegay doona san ayuu kugu soo qaban doonaa kabacdi waxaad ku dhufan doontaa meeshan ay ku qoran tahay meesha hoose ay ku qoran tahay no data view ku dhufo meesha hoose ku qoran tahay no data received ku soo dhufo okay marka ku soo dhufato meeshan ayuu ku keeni doonaa marka meeshan ku keeno halkan ku dhufo install manually ku dhufo okay kabacdi waxaad sameyn doontaa code-kan qaad oo teamka ayaynu geyn doonaa code-kaas aad qaadi doontaa okay copy-da ku soo dhufo calaamadda iris dul saar ku soo dhufo kadib website-kaaga dib ugu soo noqo ama tab kale ku furneed blogger-ka uu kaaga furaa kadib waxaad ku dhufataa team meesha team ku qoran tahay ku soo dhufo kabacdi fallaadheer hoos foorto ku dhufo waxaad ku dhufatay edit html ku dhufo kadib markuu teamku ku soo kaco meesha head hoostiisa ayaad dhigaysaa code-ka haddii xajino meesha ka hoosta head-ka space samayso basti data aan ku dhufano code-kii uu noo soo geliyaa meeshii hadda code-kii waa noo soo galay markaad code-ka saa u soo geliso waxaad ku dhufanaysaa saddexda dhibcood kadib ku dhufo save processing ayaa lagu wadaa hadda update successful ayuu yiri okay waxa ku noqonaa Google Analytics-keeni daaqadan waa iska xidhanaa hadda karooska saran iska xidhanaa muddo yar kadib isaga ku soo sheegi doona waxa ku qaadan doonta maalin ama waxoogaa time yar oo kooban ku qaadan doonta uu ka qaadi doona waxa meesha ku qorqoran kabacdi isaga ayaa ku sheegi doona in lagu dhameystiray website-kaaga oo lagu daray oo code-kii lagu process gareeyay dad optionada mid kamid ah ku soo dhufato taa home ka hooseysa hadda dad ku dhufato tan home ka hooseysa dad ku dhufato dhinacani report ku qoran tahay reports ka tan ku soo dhufano ku soo dhufato reports waxa ku soo baxay page-kan ku soo baxaya page-kan wali wax xog ah laguma soo koobin waayo imika ayaan gelinay oo wali processing ayuu ku jiraa website-keenu markaas markuu processing lagu dhameeyo halkan xogaha ayaa kaaga soo bixi doona lacagaha iyo waxyaalaha samayso dhaqdhaqaaqa website-kaaga oo dhan ayaa meesha ka soo bixi doona hadda dad ku dhufato meeshaasi sare ay ku qoran tahay real time waxaad ka ogaanaysaa dadka hadda website-kaaga xaadir ah nimkada ku jira website-kaaga ayaad ka ogaanaysaa oo meeshaad kala soconaysid inta qof hadda kula joogta iyo meesha ay ka soo booqanayso wakana wax xog ah wali nooma soo saarin oo inooma sheegayo cidda ina soo booqanaysa waayo processing ku jira wadamada ayaa halkan nooga muuqan doona in laga soo booqanayo wadamo hore nooga soo booqdo halkaas aynu ka arki doonaa hadhowto markii processing inoo loo dhameeyo markuu ina soo noo process gareeyo wixii ka dambeeya aynu ka warrami doonaa xogihiisa aynu si baadbaadi doonaa wixii ay noogu dhiman. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi